أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيقو حفصة مصنوع AKA فاطمة علي oo idin salaamaya asxaabteyda aan baraha bulshada aan ka nahay friendiska rag iyo dumarba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waqtiga aad joogtaan iyo waayaha aad joogtaanba inay idin wacnaadaan baa ilaahay ka rajeynaya insha allah. maanta waxaan u soo galay haddii ilaahay idma hadda wixii ka dambeeya insha allah muddo badan ayaan waxaan ka ahayn friends ama iskala soconay baraha bulshada gaar ahaan facebooka oo aan live ka soo geli jiray. hadda wixii ka dambeeya haddii ilaahay idmo waxay noqon doontaa meesha aad ka heli kartid haddii aad xiisaysid programmada aan sameeyo youtube-ka insha allah. waxaan marka hore aad u salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan, waqti kasta ay idin tahay iyo waayo kastood ku sugan tihiinba waxaan leeyahay idin wacnaadaan. maanta haddii ilaahay idmo waxaan rabaa topic yar inaan ka hadlo oo ah sadaqada. topic yar oo sadaqada ah. waxaan maanta aragnaa ama mararka qaybtood aad arkaysaa qof baa wuxuu sameynayaa sadaqo bixinayaa ama waxbuu bixinayaa wixii hadduu sheego inay dib u keenaysa sadaqadiisi ma oga. example qof baa wuxuu siinayaa agoon wax ama qof baa wuxuu siinayaa maxaa la dhihi jiray qof dhibaataysan wixii buu wuxuu raacinayaa inuu sheego oo dhaho waxaasaan qofkaas siiyey ilmahaas agoonka aan waxaa siiyey gabadhaasaan waxaa siiyey ninkaasaan waxaa siiyey wixii marka sadaqa ma noqonayso. sadaqadu ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala sadaqadiina ha raacinina bilmanni walada, mana sheegasho waxaasaan bixiyey ah iyo dhib. haddaad qof aad wax siisay ama agoon ha ahaado ama qof baahan ha ahaado ama qof dhibaataysan ha ahaado ama qof markastaba xaaladiisa kaa liidata ha ahaado, haddaad raacisid bilmanni walada sadaqadaas way kaa buraysaa. waxyaabaha sadaqada buriyay ka mid tahay. waxaad arkaysaa maanta in wax loo bixiyo ha layga sheego hiblaayo intaa bixisay, hiblaayo intaas qofkaa siisay, laakiin hiblaayo qofkaa intaa siisay waxaa ka qurux badan in gacantaada midigta bidixdu waxay bixinaysa aysan ogaanin. hadday dhacdo in ay tahay wax aad dadku guubaabinaysid, sadaqa aad dadku guubaabinaysid, aarta dadka inay kugu daydaan waad samayn kartaa inaad sadaqadaada ka tustid. laakiin waxay sadaqadu ku qurux badan tahay in aad sadaqadaada ka dhigatid sadaqo adigii ilaahay isla ogtihiin, sababtoo ah sadaqadaas ayaa maalinka qiyaamo ku anfici doonta. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa jiray xadiis alqudsi nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhahay nin ayaa waxaa la weliga camal wanaagsan mu samaynin markuu dhintay ilaahay waxba kama filayn. markaasuu ilaahay wuxuu yidhi anuu addoomadeeda ma dulmiyo. wuxuu kafad saaray kelmadda laa ilaaha ila allah iyo dunuubtiisi markaa waxay u ilatay kelmadda laa ilaaha ila allah. diinteena aad iyo aad waxay u baraarujisaa ama u boorisaa ikhlaaska waxa la dhaho. waxa aad samaynaysid camalka aad samaynaysid inuu ilaahay kaa yahay dartiis. haddaad camalka u samaynaysid ha lagaa sheego, haddaad camalka u samaynaysid hablaayo waa gabar gacan furan dee waxa weeye adduunka sheegii waad helaysaa laakiin aakhiro waxba kuuma jiraan. waxaa jira nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiskii aad taqaaneen saxiix ahaa ee ku jira xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay maxaa la dhihi jiray qof walba wuxuu leeyahay ilaa maa haajara ilayh. xadiiskaas oo kama qaal sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam nin baa waxay dhahay nabiga ilaahay wuxuu ku raacaya kuula hijroonaya sidoo gabar u helo, nin baa wuxuu ku raacaya sidoo maal u helo. nabiga wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam nin walba wuxuu leeyahay niyadiisa wuxuu ku jira, qof walba wuxuu leeyahay ma haajira ilayhi wuxuu soo hijrooday. marka waxaan idinku boorinayaa nafteedana ku boorinaya haddii aad sadaqa bixiso sadaqadu yay kaa noqon bilmanni walada. sadaqa aad dib iyo raacisay sheeg sadaqadu ha noqoto mid ilaahay dartii aa u bixisay oo aadan qof bini aadan ah abaal iyo ajar midna kaga doonaynin. waxaa kaloo jira waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa la dhihi jiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii Faadimo ayaa waxaa dhacday iyo cali bin abi daalib oo isqabay oo nabigana sallallahu alayhi wasallam cali ay ilma adeer ahaayeen. ilaa afkeyga baan ka dhowr daana khaldanayn nabiga inay cali ilma adeer bay ahaayeen wuu geey karaa. Faadimo bintu rasuulullah radiyallahu anhuma uu qabay ayaa waxaa soo martiyay qof miskiin ah. waxay haysteen cunto aad u yar oo xadidan. qofkii markuu soo martiyay ayay waxay sameeyeen cuntadii bay siiyeen
cuntadii markay siiyeen qofkii ayuu ay iyaga waxay sameeyeen weelashoodii bay ka siiyeen qalab si uusan qofku guilty u dareemin inay cunto cunayaan marka ilaahay aayad quraan ku soo dejiyay wuxuu dhahay innamaa nudcimukum liwajhi illah waxa idin quudiyeynaa wajiga ilaahay laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukura idinkama doonayno inaad noo mahad celisaan idinkamana doonayno jazaa'an inaad abaal marisaan walaa shukura inaad noo mahad celisaan micnaha ilaahay aayad wuxuu ku buruuf karay inay camalkoodu ikhlaas ahaa markay qofkan sadaqada siinayeen inay ka ahayd ikhlaas aysan ka ahayn halagaa sheego iyo maxaa la dhihi jiray heblaaya intaa bixisay iyo aysan ka ahayn maaragtay dadkan iyagoo gaajaysan bay naftoodii waxay u gaajaysan tahay qof kala siiyeen iyo ilaahay iyo iyagaa is ogaa iyagii oo cuntadii maxaa la dhihi jiray ka gaajaysanaya waxay siiyeen qofkii usoo martiyey markaasuu ilaahay aayadda ileen ilaahay wax walba wuu ogyahay calaamul quyuub weeye yaclamu khaa'inat al-acyun wamaa tukhfi suduur ilaahay qalbiyadana waxa ku jira wuu ogyahay inaga haddaan xataa waxa attentionkaaga hadduu yahay inaad magac ku heshid attentionkaaga hadduu yahay in lagu sheego attentionkaaga hadduu yahay heblaayo waxbay bixisaa waa gabar gacan furin in lagu dhaho de waxa waaye adduunka sheegidda aarta waa heshay laakiin aakhiro waxa weeye ilaahay baa yaqaan wax kaaga horreey marka waxaan leeyahay programkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sadaqada iyo inaan la sheegin bilmanni wal adaa mana sheegasho iyo sheegin inaan sadaqada aan la gelinin sadaqadaad ilaahay dartii ula baxdo si ay maalinka qiyaamaha ay ku anfacdo haddaa laakiin sheegtid adduunka waa lagu sheegay laakiin maalinka qiyaama ilaahay qalbiyadeenu og yahay xataa waxaa jirta sadaqada haddaad gaal siiso haddaad xoolo ama eey ama doofaar abiyisi sadaqay kuu tahay beer baahan waxaa siiso dhan sadaqay kuu tahay laakiin sadaqadu waxaa muhiim ah inay kaa tahay ikhlaas liwajhi illaahi alkariim aysan kaa ahayn inaad sheegtid ama inaad mana sheegatid marka waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed ana aadka u jecelahay ee baraha bulshada aan ka nahay saaxiibada sidaan hore idinku sheegay aniga hadda waxaan joogaa Brazil wadanka Brazil magaalo madaxda Brazil ee vacation u joogaa insha Allah waxaan rajeynayaa hadda wixii ka dambeeyay in aan maxaa la dhihi jiray aan iska arki doono baraha barta YouTube-kayga iyo Snapchat-kayga wax kasto aan isleeyahay interesting waaye ama wax kasto aan isleeyahay wadadkaaga sidaan horeba idin la wadaagi jiray live Facebook programmadaydi insha Allah waxaan kaloo hadii Ilaahay idmo aan soo celin doonaa hadii Ilaahay idmo oo program taxana noqon doona programkii qoyskii qurbaha oo ilaa iyo hadda dhowr sano ka hor 2 sano ka hor aan idinka ballan qaaday programkaas oo ku soo qaadan doono waxyaabaha qoysaska ku haysta qurbaha haday noqon lahaayeen qoysaska Soomaaliyeed iyo maaragtay dhibaatooyinka iyo dheefta labadaba dhibna qurbaha u yaala dheefna way taalaa Soomaaliya hadii laga fiirsho oo kale sidoo kale insha Allah marka barnaamijkaas wuxuu noqon doonaa qoyskii qurbaha waxa idin soo gudbin doonta anigoo Xafsa Musano insha Allah waxa idin leeyahay maanta programka yar oo kooban waxa uga hadlayay sadaqada Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u bixinaysa dartii inaan la raacin bilmanni wal adaa waxaan arkay dad hadda dhalinyaro ah oo qalbi wanaagsan oo sadaqa bixiyo oo haddana markasta inay sheegaan jecel ilma agoonaan ka faala qaaday ilma waxaan intaasoo sano biilay adiga Ilaahay inay idinka dhaxaysaa wanaagsan because waxa waaye adiga end of the day qofka ku abaal marinaya waa Ilaahay ilmaha agoonka gaalada hadda waxay sameeyaan waxay sponsor gareeyaan ilmo madow oo Afrika joogo aysan aqoonin bay ilaa jaamacad ka saaraan waxa way wajina kama rabaan lacagna kama rabaan sheegna kama rabaan laakiin adoo hadda ilmo yar oo Soomaaliya ka faala qaaday oo 200 sanadkii u dirta 200 maalin baa meel looga soo qaday Mareykanka waxay ka tahay malahan ama Yurub ama adduunyada hore u martay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aniga qofka agoonta ka faala qaada jannada waxaan ku nahay ka haateen labada farood nabiga wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam oo kale gacanta hadaa sas madaxa ugu marisid meel kasto oo gacantaada tin kasto ay taabatay Ilaahay ku siinaya ajarkeeda marka ajarkiina waxaan leeyahay iska burinina oo ha iska raacinina bilmanni wal adaa sheegid iyo ina dadka ku dhibaataysan ama ina qof kaleeto oo xataa taada kale waxaan rabaa ina idin sheego qofka bini aadanka aniga maanta waxa jira xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhacay qofka faa'il khayrka oo khayrka sameeyo qofka daaliga waa isku ajir hadaan maanta wax khayr ah ku sheegon ku dhoo ilma agoona jiro wax la siinayo qof baahan baa jiro oo aad wax siisid micnaheedu ma aha ina aniga wixii siisay micnaheedu ma aha ina aniga wax waa qof wanaag kula wadaagay baan ahay faa'ilul khayr wadaalihi waa isku ajir
aniga qofkii samaynayo wax la baxay sadaqadii aniga haddaan kuu sheego isku ajar bacnaa marka intaa kaliya inaa fahanaa fiican waxaa idin leeyahay insha allah haddaa ka heshaan programmadayda anigoo xafsa musano aka Faaduma Ali subscribe-ka iyo like-ta insha allah ii saara haddaa jeceshihiin commentiga waa ila soo wadaagi kartaan waxyaabaha insha allah wax badan oo interest ah ayaan idin soo wadaa haddii ilaahay nafta igu simo aad iyo aad baan idin salaamaya ummadda afka Soomaaliga ku hadasho